warar dheeraad ayaa ka soo baxaya dagaal aad u culus oo iminka ka socda deegaanka Ceel Jawle ee u dhaxeeya Budbud iyo Ceel Cali Xasan ee gobolka Galgaduud. Dagaalkan oo ah mid aad u xooggan ayaa wuxuu dhaxeeya ciidamada deegaanka ee Macawisleyda oo gaashanaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo maleeshiyaadka naflacaariga ee argagixisada baryahanba halkaasi ku dhumaalaysanayay. dagaalkan mid aad u culus ayaa waxa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dagaalkaas ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac. saraakiisha hogaaminaysa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Macawisleyda saaka weerarkan qaaday ayaa warbaahinta u sheegay in ay saakay dagaalka ay ku dileen maleeshiyaad fara badan oo ka barbar dagaalamaya ururka argagixisada. waxayna sidoo kale sheegeen in ka furteen hubka noocyadiisa kala duwan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed dadka deegaanka oo maalmihii soo dhaafay halkaas hawlgal xooggan oo lagu baacsanayo khawaarijta ka waday ayaa waxay ku guuleysteen ay ka saaraan dhul fara badan oo ah dhulka hawdka isla markaana ay soo saaraan minooyin iyo qaraxyo fara badan oo khawaarijtu ay ugu aaseen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed shacabka ku dhaqan deegaanadaasi.